بسم الله الرحمن الرحيم مدن مدحوينه kusoo dhaw xarunta wakaalada madbacadda qaranka sharaf iyo farxad aan la soo koobi karin ayay maanta shaqaalaha madbacadda qaranka u tahay booqashada halkan nagu soo booqatay waa dhiirigelin waa kalsooni waxa ayna marag ka tahay imaashaha halkan aad noogu timid shaqada iyo halbowlaha ay tahay ee qaranka u haysta madbacadda qaranku mudan madaxweyne maalintii koobaad ee aan xafiiska soo galnay aniga iyo maariyay ku-xigeenkayagu oo iminka laga joogo 47 cisho waxaanu magacawnay guddi qiimeyn cilmiyeysan ku samaysaa xaaladda madbacadda qaranka si aanu tallaabooyinka aanu u qaadaynaa ugu salaysnaato xog rasmi ah warbixintii qiimeynta oo ka kooban 145 page ayaanu ku haynaa oo aan ku guddoonsiin doonaa xaaladda madbacadda aanu ugu nimid wax badan ayaan ka qabanay dhiig joojin dhaqaale ayaan ka samaynay xagga kharashaadka shiidaalka mushaharaadka iyo agabka qaydin 9 mishiin oo fadhiyay ayaanu kicinay shaqaalihii oo markii hore ay soo shaqo tagi jireen celcelisaad 25 ayaanu hawlgelinay 95% laba shifti ayaanu qaybinay gelin hore iyo gelin dambe wax soo saarkii madbacadda ayaanu kor u qaadnay 300% maadaama laba shifti aanu ka shaqaysiinay mushaharaadkii ayaanu waqtigooda ku bixinay labadii bilood ee ugu dambeeyay iyadoo aanay cidina naga caawin shaqaale hoosaadka ayaan mushaharkii u kordhinay 100%. hiigsi fog ayaan ka leenahay mustaqbalka madbacadda 4 tallaabo ayaa ugu weyn uguna mudan kor u qaadida tiknoolajiyada daabacadda ballaadhinta awoodda daabacadda si xaruntani looga daabacdo dhammaan dokumentiska dawladda casriyeynta dokumentiska ay madbacaddu daabacdo si looga hortago ka been abuurka dokumentiska iyo in aanu kobcino aqoonta kalsoonida iyo farsamada shaqaalaha madbacadda si madbacaddu ay qayb uga gasho tartanka suuqa ee xorta ah ugu dambayn guulbaan inoo wada rajaynayaa madaxweyne mar kalena waan kugu bogaadinayaa inaad nagu soo booqatay xarunta guud ee wakaaladda madbacadda qaranka waxaanay dhiirigelin u tahay dhammaan madaxda iyo shaqaalaha madbacadda qaranka